kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadlayno tababar loogu soo gabagabeeyay xirada Idris Faarax Cabane oo ku taala caasimadda waddankani Jamhuuriyadda Djibouti ciidamo Police Soomaaliya tababarkan oo soconaya muddo 3 bilood ayaa waxa ka qayb qaadanayay ciidamo booliis oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo askari tababarkaasi ka caawinayay saraakiil isugu jirta AMISOM midowga Yurub iyo waliba dawladda Djibouti tababarkan ayaa waxa inta badan bixinayay maalgelintana bixiyay dawladda Talyaaniga iyadoo oo sidoo kalena goobtaasi ay ciidamadu ku soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen isla markaana ay soo bandhigeen gaadda ka ciyaar ay aad ula dhaceen dhammaan ka soo qayb galayaashii tababarkan muddada 3 bilood soconaya ayaa xirada nagaar waxay ahayd meel cisho walba ciidamadaasi ay ku bartaan tababaro iyo waliba hawlgallo aad u qurux badan oo aanay hore u garanaynin sida badbaadinta madaxda dawladda iyo waliba ka hortagga banaanbaxyada iyo sidoo kale baaritaanka dhibaatooyinka la garan waayay ee dhaca inta kadib munaasabad ballaaran ayaa waxaa lagu qabtay xirada Idris Faarax Cabane iyadoo oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay dawladda Djibouti dawladda Soomaaliya dawladda Talyaaniga iyo waliba saraakiil kale oo yana ka socotay ciidamada baysaska kule ciidamada xarumaha kula waddankani Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan Faransiiska Jarmalka Mareykanka iyo waliba Japan That is a Delta platoon. And they are moving straight to the amphitheater. markii la daawaday gaadda ka ciyaarka ciidamada qodbada dhaadheer ka soo jeediyay
hoolkii shirarkee loogu talagalay munaasabadda in lagu qabto madaxdii kala duwaneed ee halkaa isugu timid. mudanayaal imarooyin intaanan gudagalin warkii koobnaa aan rabo inaan halka aan ka soo jeediyo anigoo ka faa'iideysanaya xafladan oo si fiican loo agaasimay waxaan doorbiday inaad u tacsiyeeyo qoysaskii eheladii qaraabadii walaalaheena ee ku shahiideen waa shahiid way ama ku dhinteen falalkii arxamdarada ah ee ku kaceen nabadiidka ah waxaana ilaahay uga rajaynayaa inuu ka waraabiyo jannadiisa firdoos ah intii kale ee ku dhaawacantayna waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu caafimaad degdeg ah u siiyo intaas kadib waxaa farxad ii ah runta ah inaan maantaan dalkayga labaad ee jamhuuriyadda Djibouti aan joogo maanta aan ka qayb galo xafladii xiritaanka ciidanka booliiska oo tiradooda 197 200 ay ahaayeen 3 ayaa la soo celiyay oo 3 bilood halka ay ku qaadanayeen tababarka ay ku qaadeen uma baahan inaan idin sheego waayo indhihiina ayaad ku aragteen ciidanka booliiska ma aha markii koowaad oo akademigan ah lagu tababaro waayo hadda ka hor badankiina waa la socotaan halka in lagu tababare 500 oo dhalinyaro ah ee ku soo biiray ciidanka booliiska halkan ayaa lagu tababaray booliisnimadooda halkan ayaa lagu tababaray shaqadii ama waajibaadkii booliiska laga rabo halka sidoo kale 12 oo askar ah saraakiil xigeen ku jiray oo tababar lagu siiyay halka dhinaca ka hortagidda arrimaha argagixisada tanna waa markii saddexaad ma aha markii ugu dambeeyay waa markii afraad iyo markii shanaad waayo runta waxa way akademigan ma aha kaliya akademiga u dhisan ciidanka booliiska Djibouti kaliya waa labada ciidan booliiska Soomaaliya iyo booliiska Djibouti u dhisan iyo ogolaada marka mudanayaal imarooyin inaan u mahad celiyo dawladda ama xukuumadda Djibouti iyo shacbigeeda waayo waa la soconaa idinkana waa la socotaan dawladda iyo shacbiga Djibouti waxay ku hooliyiin in Soomaaliya dib ugu istaag lugaheeda markasta kaalin wax ku ool ah hiil iyo hooba shacbiga Djibouti iyo xukuumadeeda ah ayaan ka haynaa Allow me to thank again the government, Djibouti government, because tani intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo waa Mikael Cabdirashiid Barre oo barnaamijkeeda la socodsiinayo oo idin leh sidoo kale ismaqal dambe oo xiiso leh waxaa mahad gaar ah celinaya taliyaha ciidanka booliiska iyo saraakiishiisa sida runta ah ma hayo runta ah hadaladii aan u jeedi lahaa saaxiibkaygi ama walaalkay Cabdullaahi waayo sida runta ah tababaridii halka booliiska lagu siiyay ha ugu dambeeya kan halka hadduusan kaalintiisa dadaalkiisa iyo kartidiisa sida hadda aad ku aragtay meesha ay soo mareen
ay soo bandhigeen ma gaari lahayn runta taas waxaan ku gaarnay runta waxaa waaye taliyaha booliiska iyo saraakiisha ah iyo oo xeerkaas gaarsiiyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo